sababaha keena inuu qofku saciid noqdo si kale haddaynu dhigno nolol raaxa iyo nafis leh oo aan diiqad iyo cidhiidhi lahayn inuu qaadan karo wa kullu nnaasi yadlubu daalik wa annaa libacdihim dadkoo dhammi taa way wada doonayaan laakiin dar baan gaadhi karaynoo dariiqadeedii aan maraynin dadka qofba meel unbay qodaxi kaga taaganta qofba meelunbuu musbaar kaga taagan yahay mid waliba meelunbuu ka yaabyaabsan yahay markaa sidee baa noloshu nafis ugu noqon kartaa qofka nolol iska nafis leh oo warwarka iyo qulubka iyo qalaqu ku yaryahay sidee buu ku qaadan karaa adduunyada wax badan baa la baadi doonaa maanta laakiin islaamunbaa lagu hayeetaa sababaha sacaadada lagu gaadhi kara islaamkeennu uu sheegay nolol raaxa leh way badan tahay laakiin 30 ku dhowaad ayaynu ka qaadan doonnaa inta wakhtigu inoo saamaxa insha allah inta wakhtigu inoo saamixi waana wakhti kalaynu ka dhigan sababahaas waxaa ka mid ah qawaacidka loo sameeyey fakir washkur inaad fikirta mahadnaqdana an tufakir wa tashkur markaad hareerahaaga eegto wax badanna aad fikirto waxa nicmada ilaahay uu ku siiyeyna aad hoos u eegto waxaa dhici doonta in waxa kugu dallacani uu kaa dego ilaahay baa wuxuu uhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobi karaysaan caafimaadkaagaad eegi amnigaaga cunnadaada dharkaaga iyo hawadaada aad neefsanayso iyo dad intaaba waayey waxaad garan doontaa markaa adigu waabaad warwarsantee dad badanoo dhaantaaba inuu jiraba ilaahayna inooma yaraysanna aad buu inooga waaniyey taasoo waxau uhi wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina isagoon dadka badh la hadlina la wada hadlay wuxuu udhi ilaahay nicmooyinkiisa wuu idiin dhammaystiray teeda muuqata iyo ta qarsoonba nicmada ilaahay way badan tahay tu kuu muuqata iyo tu aana dareemayn hunaaka nicamun yusamaa daqaa'iqu nicam waxaa jira nicmooyin la yidhaahdo nicmooyinka qarsoon oo qofku uu garto un maalintuu waayo wuu xanuunsanayaa dakhtar baa u sheegaya wuxuu odhanayaa waxa iyo noocaa iyo noocaa iyo noocaas ayaa kaa maqan oo aad weydo cudurkani ku hayaa oo mabaan aqoon waxaa inaan haystee nicmadaa berigii hore inay jirtaba maan aqooninba ilaahay baa markaa wuxuu uhi fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan nicmooyinka ilaahay teebaa beeninaysa midna ha beeninina nebi maxamedna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo fikirkiiyo shukrigayna faraya waxay eegtaan dadka idinka hooseeya markay adduunyada iyo waxaad tebaysa noqoto dadka idinka sarreeyaha eegina si aydaan nicmada u fudaydsan in ilaahay uu idin siiyo mar walba cid baa kaa hoosaysa wa fii anfusikum afalaa tubsiruun bal hadda nafihiinna miyaydaan arkayn buu ilahay yidhi maa fikirtaanoo nafta aad u eegtaan wuxuu ilaahay idin siiyey waxaa kaa maqan intaad eegayso yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunaha mar kaleu ilaahay yidhi dadka qaar baa nicmada ilaahay garanayo haddana istiidsiinaya nicmada ilaahay bay garanayaanoo way istiidsiinayaan qaacidada labaad waxa weeye maa madaa faata wixii tegey wuu tegey wixii ku dhaafay wuu ku dhaafay idan markaa waxaa la yidhaahdaa tadakuru almaadi wa taxasunuh qatlu liliraadati cinda alcuqalaa qatlu liliraada wixii ku dhaafay inaad xusuusato oo aad ka murugootood aad isugu adkayso iraadadaadii iyo go'aankii aad qaadan lahayd bay dabcisaa shaygu islaamku sabirka u yaqaano wa qatlu liliraada qofku hadduu ciilkama karo noqdo wixii hore uun soo maray uunbaa u xambaarsan yahay hamigoodu iraado yeelan kari maayo hore u socon kari maayo
arrinta noocaasoo kale cinda alcuqalaa'i tudwa walaa turwa baa la ydhaah dadka caqliga leh waa la laabaa waa la wariyaa laakiin lama sii wadwado ha laga faa'iidaysta tijaabooyinka iyo dhacdooyinka laakiin qalbigaaga inay disho ma aha ilaahay baa wuxuu uhi tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtu kuwaasi way tegeenoo umma tagtay bay ahaayeene waxba ha ku warwarinoo ha ku warwareegine waxa soo socda ka warrama arrintaasina waa muhiim min asbaabi sacaada waxaa ka mida yowmuka yowmuk maalinkaagu waa maantadaad joogto maalinkaagu waa maalinka aad joogto sidaa daraaddeed baa dhaqanka asxaabtu waxau ahaa idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa haddii waagu kuu baryo gabaldhac ha sugi haddii gabalku kuu dhacana waa kuu barya ha sugi maalinkaagaasumbaa waxaad u qaybinaysaa saacadihiisa sannado iyo ayaamo iyo bilo ayuunbaad u qaybinaysaa daqiiqadihiisana waad kala jiidaysa isagunbaad ka faa'iidaynaysaa waxuunaad odhanaysaa maantumaad haysataa khalaas marka maanta sidaad uga macaashtaa un weeye warkaaguba allah wuxuu uhi wakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin waxaan ku siiyey qaada buu ilaahay oo igu mahadnaq waxaana ugu muhiimsan maalinkaad haysataa ugu muhiimsan awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaa'akum nadiir qadiyadda cimrigu qur-aanku ka warramaya waxaa ka mida min asbaabi sacaada utruki lmustaqbala xataa ya'ti mustaqbalka iska daah ilaa intuu imanayo mustaqbalka dadka qaarkood baa mustaqbaliyiin la ydhaahdaa qaarkoodna maadiyiin baa la ydhaahdaa odayaashiiyo waayeelka maadiyiin baa la ydhaahdaayoo ma waxaannu arki jirniya waxa maantana haysta ayuunbay dhaa ragna raggii hore weeye warna waa intuu yidhi beri ay caynkaa ahayd annagoo halkaasa balaayaba imakay joog wixii hore uu yarwil maadigu la noolyahy waalaakhar mid kalenoo dhallinyaro ana waxa ku weyn mushkiladda mustaqbalka inantii iyo inankii yaraaba waxay leen mustaqbalkaygii haddaanan tahriibin ma mustaqbal banaya halkan mustaqbal mushkilatulmustaqbaliyiin baa kuwaana la ydhaahdaa ilaahay baa wuxuu uhi ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh arrinkii ilaahay wuu iman doonaa waxba ha dedejisanina waa maadin bimacna mustaqbal arrinka ilaahay wuu soo socdaaye waxba ha dedejisanin wuxuu ilaahay keenayo wuu iman doonaa saa daraaddeed baa la ydhaahdaa alaxdaafu laa tusbaq lianlaa takuuna ijhaada dhacdooyinka soo socda lagama hor dhaco si aanu arrinku dhicisu noqon ila lama gaadhinbe alaxdaaf laa tusbaq waa la odorosi karaa hilaadin iyo odoros baa la ydhaahdaa waa laga sii fikiri karaa in shaa allahu haddii saa wax noqdaan waa la fikiri karaa laakiin lagama warwaro layskumana dhibo sidaa daraaddeed baa waxaa la ydhaahdaa dee midhahaba waa la diiday in la goosto ilaa ay bislaadaan midhaha ugurida laguma goosto si aan anfacooda u lumin falaa takhaafu aljuuca waalmarada waalfaqr ha ka cabsanin mustaqbalka in gaaja ku dilayso in cudur ku dilayo in cabsii ku dilayso warwarkaa aad mustaqbalka ka qabta ka daah ilaahay baa wuxuu uhi ashayطaanu yaciidukum اlfaqra waya'murukum biاlfaxshaa wallaahu yaciidukum makfirata minhu wafadla shaydaanku wuxuu idin yaboohayaa faqriga ayuu idin yaboohayaa waxba heli maysid buu koodhanaya sidaa hadday arrinta ku sii socoto shaqola'aantanina jirto guurla'aantanina jirto meeshanna aad joogto wax alla waxaad helaysaa ma jiro faqrigaas iyo foolxumo isku rakiban buu la taagan inuu kuu yabooa ilaahayna dembi dhaaf iyo fadli weyn ayuu ilaahayna idiin yaboohayaa wax weyn weyn markaa mustaqbalkaa ilaahay ha loo daayo qofku sababihiisa ha qaato laakiin warwarkaa laga hadlayaa warwarka kaa haya mustaqbalka marka haddaad aragto qof sidhinka mustaqbalku ku dallacanya war ka daadhe warwarkiisa iska daa waxaa qawaacidkaas ka mid ah kayfa tuwaajihu naqd alaakhir laabudda an tacrifa kayfa tuwaajihu naqd alaakhir
dadka kaa soo hor jeeda ee kugu kacsan sidaad iyagana arrinkooda uga dabaalan lahayd qofku hadduu dadka iskaba daayaba isagaan la daynayn diiqad badanna waxa ku abuuraya dadku daba socdoon kuba daynayninba taasaa iyaduna wax jira ahoo dadka in badan nolosha ka xumaynaysa waxaad ku soo ururinba taasoo aad kaga nasanba dee qaar baa ilaahay iyo rasuulkaba caayay adiguna miskiin yar baad ogow ilaahay addoommaha waxaana wanaag ahayn dee ulama yeelna haddana intay af kala qaadaanba ilaahaaga waxaa ku samaydhaa rasuulku sala allahu calayhi wasallam waa naxariistii ummadda waxaan khayr lahaynba ulama imanba wax sharaba haddana nebigaaga waxaa ku sameeya bay leeyihin adiga balka war adigoo dee dadkii dhibka lahaa ku jira adigana maxaad u malaysanaysaa in wax lagaa sheegi waayo nin shaacirabaa wuxuu idhi xasadulfataa idaa lam yanaaluu sacyah faannaasu acdaa'u lahu wa khusuum ninkaa dhallinyarada ah way xaasideen buuhi markay dadaalkiisii gaadhi waayeen dadkuna cadow iyo kuwa la murmay u noqdeen marka arrintaana ku xisaabta haddii aad qof yahow doonayso an takuuna maqbuulan lada aljamiic saliiman min alcuyuubi cinda alcaalami hada mustaxiil dadkoo dhammi inay soo wada dhoweeyaan dadkoo dhan agtooda midaan ceeb lahayn haddaad taa doonayso arrintaas waa mustaxiilaha ku daali ka naso markaa mushkiladda ah maxay dadku maxaa igu sallideen dadka taana halkaa iska dhig wixii wanaagsan wad waxaa wax kaa sheegana weydaaro qawaacidka waxaa ka mida laa tantadir shukran min axad qawaacidka sacaadada sababaheeda ah waxaa ka mida cidna mahadnaqa ka doonin cidna mahadnaqa ka doonin ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala qofka khayrka sameeya ma waayo jawaabtiisa laakiin laa taqdab idaa jaxaduu macruufak ha cadhoonin markay macruufkaaga qiri waayaan dadku laa lishayin ilaa liannaka axsanta ilayhi wax kalena uma diidayaane waad ka wanaag badatay ama iyagaabaad wax siiso dadka qaarkood baaba haddii aanad waxba ku tarin aan waxba kaa sheegin kuna dabagelin mushkiladdooda ay bilaabantaa un markaad wax ku tarto soo maaha markaad wax ku tarto unbuu bilaabaya balaayadiisa marka aanad waxba ku tarin ama aydaan isdhexgelin arrin iyo aqoon iyo adduun iyo markaanad waxbaba ku tarinba maba ku taataabanayo markaad u bilowdaabuu isna ku bilaabaya markaa ha odhanin war kan markii horeba imuu daba socon jirini ama ummaddii maxaa igu sallida imminkaa baan ugu waxtaroonahaye ha odhanin ilaahay baa wuxu uhi wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allaahu warasuuluhu min fadlih nimankaa munaafiqiinta ahay waxay dadkaba ku daba socdaan ilaahay iyo rasuulkaa wax siiyey waxa uga daray deeqdu ilaahay siiyey iyo dadaalku rasuulku u galay munaafiqiintuba nebiga waxay ugu darnaayeen markuu wax siiyo markuu ilaahay u kordhiyo deeqda markaasay ugu darnaan jireen saas weeye carabtu markay arrintaa daraasadeen waxay idhaahdeen laa tasnac ilmacruuf laa yaji'ak shar dadka khayrba ha u samayna si aan sharba kugu iman waa ma aha wanaagsanayn laakiin waxay arkeen waxa mushkiladda ugu badan inay tahay un dadka wixii ay wax siiyaan sidoo kale libaax wuxuu kugu bartuu kugu dilaabay soomaaliduna odhan jireen adigu taa ha yeeline icmal ilkhayra liwajhi illaahi tacaala wixii khayra ilaahay wejigiisa u samee ila ilaahay saasuu ku ammaanay mu'miniintu waxay leeyihiin innamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura ilaahay daraaddii baanu wax idiin siinaynaaye abaalmarin idinkama doonayna iyo mahadnaqtoona gaaladu waxay ka xanaaqaan marka macruuf ay cid u sameeyaan ee thankiyuu la odhan waayo waad mahadsanta kii wuxuu sameeyey ama wax siiyey markuu waad mahadsantay odhan waayo soomaalida iyo ay idhaahdaan miyuu waalan yihin ilamabuu hadalbe jawaabba imuu siininbe waa maxay muxuu odhan waayo waad mahadsanta marka yadlubuuna shukra min alkhayr ilaahay baanay shukri ka doonaynine dad kaley shukriga ka doonayaan
nin shaaciraa waxa uu arkay ninkii uu tababaro u dadaalay dadkana uu ku soo dhex daray oo maanta uguba neceb dad markaasaa wuxuu uhi ucallimuhu rimaayata kulla yawmi falama ishtadda saaciduhu ramaani inankaa isagay arkaysaan buuli maalin walba waxaan bari jiray shiishka iyo rag siduu isaga celin lahaa mar alla markuu xoogaystuunbaabuu aniga igu bilaabay buuli aniga ayuu igu bilaabo wuu igu dhugtamay buuli marka sidaasoo ficilkiibuu sheegay qowlkuna saasuu la mid noqonayaa hadday saaxiibbada tahay hadday dadkaad madaxda u tahay haddii ay ehelka tahay in badan baa abaalka la siiya uga daraa ha la yaabin haddaba nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi laysa alwaasilu bilmukaafi qofka qaraabada xidhiidhiya lama yidhaahdo qofka markay wanaajiyaanun dadka wanaajiya qofka abaalguda lama yidhaahdo waasil qaraabo xidhiidhiya lama yidhaahdo ka dadka u abaalguda qaraabo xidhiidhiyaha waxaa la yidhaahdaa qofka abaal mariya qaaraan abaalba ku lahayn ee hadday doonaan inkaaraba u leh waa tan nafteedu ka hadlaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qawaaxidka waxaa ka mid ah min asbaabi asacaada alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur inaad dadka u samafasho laabtaaday raaxa ku reebtaa inaad dadka la colaatantana ka ugu horreeya diiqadaysani waa adiga macnaha in gacani kugu maqan tahay ama dulmi kugu maqan yahay waxa ka dooroon in adiga gacani kaa maqan tahay ama abaal aan lagugu lahayn ama wax kaa maqan yihiin adiga wa min asbaabi asacaada aljamiilu kasmihi waalmacruufu karasmih waalkhayru ka طacmih waxa macruufka la yidhaahdaa sida magaciisunbuu la mid yahay jamiil wax wanaagsan weeye wanaagguna waa saasunbuu wanaagsan yahay sida magaciisu wanaagsan yahu wanaagsan yahay marka waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaad annaasi hum almutafadiluuna liliscaad bihada aliscaad dadka had iyo jeer ugu wanaag badani waa kuwa wanaagga sameeya haddaad wanaag dad u samayso wanaaggaa cidda ugu horraysa helaysa waa adiga waayo waad nasanaysaa inaad waajibkaagii gudatayna waad dareemaysaa inaanad godobaysnay baad dareemaysaa in adiga wax kaa maqan yihiin baad dareemaysaa kullu daalik arrimahaasoo dhan waxay iscaadka waxyaabaha keena weeye iscaadku maaha intiqaamka iyo aargoosiga laakiin iscaadku sacaadada waxa weeye dulqaadka intaad gabban lahayd in adiga lagaa gabbado mid baa xoolo kaa dhacay soo maaha ha ku goonaatee ugdaah mid baa been kuu sheegay ha kaga daba tegin waxbuu kaala maqan yahay ha kaga daba tegina ku daah mushkilad kaluu keeni lahaa iyo diiqad kaluu ku gelin lahaabaa halkaasay kaaga oodnaanaysa ninbaa dadka had iyo jeer wuxuunbuu ammaahin jiray markay idhaahdaan amaaha markay ka doonaan wuxuu ogyahay inaanu soo celinayn intuu ku soo noqnoqon lahaa su'aalo badan uu weyddiin lahaa wuu amaahinayaa marka 10 jeeroo wax weyddiin lahaa halkaa mare uu amaahiyey ayuu kaga hadhayaa inuu markan la baxsanayaa buu ogyahay la baxsada buu leeyahay soo noqon ha firdhado sidaasi ayaa maaragtay ixsaan sacaadadu ay tahay wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza abubakar buu ilaahay ammaanayoo wuxuu idhi cid gacan ku lihi ma jirto isagunbaa dadka abaal gudi jiraye isagu cidinaba waxba abaal laguma lahayn min asbaabi sacaada waxaa ka mida nolosha nafiskeeda waxyaabaha ku keeni kara udrud ilfaraaqa bilcamal faraaqa macnaha jaaniska aad leedahay iyo gacan madhnaanta waxa aad ku dishaa waxqabad macnaha gacan madhnaanin oo adigoo iska faariqahoo aan waxba haynin ha taagnaanin taasi nolosha dhadhankeeda iyo sacaadadeeda way lumisaa laakiin waa inaad camal ku qabataa oo aad ku buuxiso walow riyaado iyo jidhkaagoo tababartana ha ahaatee oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi alxayaa hum ahlu lirjaafi waashaa'icaat dadka faraaqa lihi waa dadka ugu badan ee wararkana wareejiya ummaddana khalkhaliya dadka laakiin shaqada badan haystaa waa dadka uguna aamus badan waxa la yidhi baa la yidhidana ugu yaraysta soo soomaalida maad arag bilaa shaqay u badan yihin
markaa qofkii tamar la'aan maayo tamartiisii wuxuu ku howlgelinayaa uun shaa'icaad waxa badanee la sheegay la wareejiyo dadkoo warwar lagu abuuro qaar la isku diro dee goolaaftankiibuu wadaya iyo fadhi ku dir marka hadduu qofkani shaqo tegi lahaa hawshani ma timaadeen allah munaafiqiinta eedeeya wuxuu idhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif nimankaa hanyaraantooda waxay raalli ka noqdeen dumarkii iyo carruurta guryaha laga tegay inay la fadhiyaan oo ay ka soo hadhaan raggii waaweynaa ee jihaadayey ee faraaqooda camal cibaada oo dagaala ku buuxinayay sidoo kale waxaa la yidhaha idbaxi alfaraaqa bisikiini alcamal culimmada adibadu waxa ay sheegayaan boqolkiiba konton dadka daraasada sameeyey xataa muslimiintaba ahayn boqolkiiba konton sacaadada waxa ay qaabilsan tahay qofku inuu camal qabto oo muruqyadiisa uu maalo sacaadada qayb weyn bay ka tahay saa daraaddeed baa had iyo jeer maskaxmaalka waxa ka sacaado badan dadka muruqmaalka oo dadkaa dhismaha iyo kuwa beeralayda iyo yuqariduuna bilanaashiidi kalcasaafiir baa la ydhaha way iska heesayaan sida shimbirahoo kale ayaa hawleed ayay wataan iyagoo muruqooda maalaya oo qosol iyo farxad ku nool halka dadka mufakiriintii yataqallabuuna cala alfurush furaashyada ay isrogrogayaan ee ay seexan laayihiin marka taasina aad bay muhiim u tahayoo si aynu uga nasanno dhibaatadayna haysata wax badan waa inaynu shaqooyin samaysannaa shaqooyin inaad adigu shaqo samayso wey oo aanad soo lignaanin uunad soo fadhiin si noloshu macna kugu samayso marka dadkan faraha badane ama isdilaya ama rabshadda abuuraya ama tahriibaya ama buuqu ka dhex socdo haddii qoloba meel lagu jaheeyo sacaadaa iman lahayd sacaadada mujtamaca ayaa iman lahayd waxaa ka mida min asbaabi sacaada laa takun immaca ha noqonin qof nacam leh oo dadka unu jiibiya xadiid maaha laakiin waa ahar mawquufa sida saxiixa ah oo meelaha qaarkood inuu xadiid yahay bay xusaan inuu marfuuc yahay waxa ka saxiixsan inuu maqaalad cabdilaahi bnu mascuud yahay marka inaad adigu shakhsiyadaada ilowda maaha laa tansa nafsak walaa shakhsiyatak laa tansahir fi alaakhar aw fi alaakhariin naftaada ha ilaawin hana tasaynin dadka kalena ha ku dhex milmin oo yaan lagaa dhex hadlin haddaad nin weynta yaan lagaa dhex hadlin caqli aad leedahay iyo cilmi aad leedahay ku hadal iyo khibrad aad leedahay oo waxaad ogaataa khalqiga sidan ilaahay muuqaalkooda u kala duway inuu dee u kala duwan yahay caqligooda iyo macnawiyaadkooda marka haddii caqligaaga la isticmaalo oo lagaa dhex hadlo dee maalin walba in yaroo lagu kiciyaabaa laguu soo sheegi in yaroo lagaaga cadhaysiiyuunbaa lagu laqin daroobiskaa lagaaga cadhaysiinaa lagu dhibqinaya cerkaasaad maraysa haddana waa lagaa dejin haddana waa lagu dhibqin marka waxaad noqon doontaa qof hadallo iyo fikrado dad kale la karaya ee wixii laguu sheegay ilaahay wuxuu caqliga kugu siiyey inaad waxna diiddo waxna ka doodo waxna aqbasho marka waxyaabaha sacaadada nolosha keena waxaa ka mida iyo nefiska inaad caqligaaga iyo cilmigaaga ku socon karto ilaahay baa wuxuu idhi qad calima kullu unaasin mashrabahum walikullin wajhatun huwa muwalliiha qof waliba mashrab buu leeyahy meelu ka cabo afkaartiisa ka qaato qof waliba qiblo u jeedsadaa buu leeyahy marka adigu qofuu qibladaada ha ka dhigan waxaa ka mida min asbaabi sacaada kuwa u muhiimsana muslimku leeyahayna ka mida aliimaanu bilqadaa'i waalqanaacati bihi inaad rumaysan tahay wuxuu ilaahay qadaray kuna qanacsan tahay aad bay muhiim u tahay taasina ilaahay baa wuxuu uhi maa asaaban min musiibatin fi اlardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'aha wax kasta oo idin soo gaadho oo musiibo ah cir iyo dhul ilaahay horuu u sii qoray musiibadan intaanay sooba bixin baabay sii qornaydba sidaa daraaddeed caqiidadaas markay laabtaada gasho waxaa la yidhaahdaa saarat ilbaliyatu catiya waalmixnatu minxa balaayadu waxay noqonaysaa barkhad mixnadda musiibada kugu dhacdayna waxay noqonaysaa minxa deeq bay noqonaysaa ila waad ka macaashto waad ka faa'iidaysee
man yurid illaahu bihi khayran yusab minhu nebigaa wuxuu uhi qofku ilaahay khayr la doono musiibuu ayuu taabsiiyaa qofka ilaahay khayru la doona buu rasuulku leeyahy musiibo la'aan ma noqdo islaamu waxay idhaahdaan shaydaan baan bukoonin soo kamaad maqal shaydaan ayaan bukoonine insigu wuu bukoodaabay ku leeyihin macnaha muslimka balaaya ma seegto waa kaa nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam qofku ilaahay khayr la doono musiibuunbu ku ridaa hana odhanin si aan sacaadadu kaaga xumaanin low annii facaltu kada wakada lakaana kada wakada faina low taftaxu camala ashaytaan walaakin qul maa qadara allah wamaa shaaa facal haddaan waxaa samayn lahaa ha odhanin laakiin waxaad tidhaahdaa ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna wuu hirgelayaa sidaa isku qanci marka inaad qadarka rumaysan tahay wax badan bay qaanacaad ku siisaa waxay ku siisaa nolol wanaagsan wixii ku dhaafayna uma warwaraysi waxa aad heshayna lama yaabaysa mid walba ilaahay baa kuu qadaray baad leedahay arrintaasina waa arrinta tobnaada keenaysa min asbaabi sacaada ee qofku isagoo balaayo weyniba haysato iskana faraxsan yahay iskana qoslayo oo iska nafis yahay intaasaynu ku joojin insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu